السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waa idin salaamahayaa Soomaalida meel kasta ay joogtaan. maanta waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sidee u kasban kartaa kalsoonida naftaada ama u dhisi kartaa kalsoonida naftaada. waxaan soo wadaa barnaamijyo badan oo cilmi nafsi ah haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan dareemay inuu ka bannaan yahay fursad ah cilmi nafsiga. Soomaaliduna ay maaragtay u baahan yihiin barnaamijyada cilmi nafsiga ah. Soomaalida dhammaantood cilmi nafsiga waxay u haystaan qof waalan ama waali laakiin se way ka duwan tahay. nafta waa maaragtay waxay u baahan tahay inuu dhiso. kow, sidee u dhisi kartaa kalsoonida naftaada oo aad u noqon kartaa qof isku kalsoon bulshadana ay u aragto qof maaragtay aad iyo aad isku kalsoon oo qiimo ku leh agtooda. sidee maaragtay dadku ay ku qiimeyn karaan kow oo aad qiimo badan ugu yeelan kartaa bulshada dhexdeeda. waxaa ka hadli doonaa sidee ku kasban kartaa qof ku gooyay ama ku jaray ama kaa danaystay. intuu kugu danaystay kaa danaystay sideed usoo ceshan kartaa ayadana waa ka hadli doonaa. waa barnaamijyo badan oo isdaba taxan oo aan ka hadli doono maadaama aan dareemay majaalkaas inuu ka bannaan yahay bulshada Soomaalida dhexdeeda. anigu hadda ma doonayo YouTube-kan inaan lacag uga sameeyo ama aan mataqaanaa ku noqdo YouTuber, laakiin waxaan jeclaystay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed usoo gudbiyo wax alla wixii maaragtay aan ka roonahay siday u dhisi lahaayeen kalsoonida naftooda ama ay u kasban lahaayeen bulshada ay ku dhex nool yihiin ama ay u noqon lahaayeen qof qiimo ku leh bulshada dhexdooda. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin tababaro iyo dhiirigelin. waxaan leeyahay dhammaantiin bulshada Soomaaliyeed barnaamijkayga waa inaad share, subscribe, like wax walba aad dhahdaan siday u gaaro dadka oo dhan. qof walba maaragtay wuxuu dareemayaa inuu dadka ka hooseeyo ka liito mataqaanaa dadka hadalka dadka qaar maaragtay waxaa la dhahaa waa muqajiliin ama hadalka ay ka xishoodaan. guryaha ay isku haayaan ma sameyn karaan calaaqaad ama xiriir dadka lama yeelan karaan. gabar ay jecel yihiin lama hadli karaan. arrimahooda uma sheegi karaan. waxaasoo dhan sidii ay maaragtay qof adag oo dantiisa ka hadli kara u noqon lahayd ayaa mataqaanaa YouTube-kan ugu soo gudbi doonaa haddii Ilaahay yiraaho. barnaamijyo dhammaystiran oo mataqaanaa isdaba yaalla iyo tababaro iyo qaabka aad uga bixi lahayd maaragtay kelinimada ayaan barnaamijkan YouTube-kan kusoo gudbi doonaa. laakiin waxaa ka horeysa marka hore inaad like iyo subscribe badan siisaan si aad iigu samaysaan dhiirigelin. adduunku waa dhiirigelin. haddii uu qofku waayo dhiirigelin hore uma soconayo. marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan dareemay in ay maaragtay u baahan yihiin barnaamij cilmi nafsi ah maadaama YouTubada Soomaalidu ay u badan yihiin waxyaabo maalayacni ah ama ka qoslis ama madadaalo ama mataqaanaa sheekooyin aan maaragtay ku xirnayn mustaqbalka qofka bini'aadamka ah. bini'aadamku wuxuu u baahan yahay tababaro iyo mataqaanaa dhiirigelin iyo ka hadal si maaragtay oo u noqdo qof bisil oo maaragtay nolosha bini'aadamka wax kusoo kordhi kara, naftiisana wax kusoo kordhi kara. mataqaanaa cilmiga ugu badan oo bulshada Soomaaliyeed ay ka baahan yihiin waa cilmi nafsi ama mataqaanaa sidii nafta loo daaweyn lahaa oo looga dhigi lahaa qof naf toosan oo maaragtay bulshada dhexdeeda qiimo ku leh. inkasta oo aniga laftayda ay maaragtay cilmi nafsigaas oo dhinac iga soo galahayo oo xanuun cilmi nafsi ah oo maaragtay isoo gaaray. qof walba waa qabaa xanuun cilmi nafsi ah. Soomaalida badankoodu waa dad waalan waxay dhahayaan waalidu waxaa jirta waali dharka dhigato iyo waali dhaqanto. qof walba markuu meel fadhiyo keligiisu isla hadlaa war maxaan iskula hadlahayaa maan waalanay waa isla sheekaysanaysaa. laakiin waali dhaba ma aha. qof walba inuu isla sheekaysto inuu meel fadhiisto naftiisa xisaabiyo waa wax loo baahan yahay. haddii aad dareento inaad kaligaa inta meel fadhiisato aad isla sheekaysato ha ismoodin inaad waalan tahay. maaragtay dadka ugu caqliga badan ama adduunka ugu fikirka badan ama cilmiga adduunka heer ka gaaray waa dadka ayagu isla sheekaysta kaligood ilo inta fadhiistaan. marka waxaa tahay qof aad iyo aad u caqli badan haddaad kaligaa meel inta fadhiisato aad naftaada xisaabiso. mataqaanaa barnaamijyada noocaas ayaan hadda keeni doonaa haddii Ilaahay yiraaho. hadda maanta waa hordhac. marka waxaan kaga baahanahay in aan maaragtay dhiirigelin ii samaysaan, like iyo subscribe ay dhahdaan. mataqaanaa anigu aad uma aqaan YouTube sida loo isticmaalo oo maaragtay kalarka loo saxo oo mataqaanaa codka loo saxo oo mataqaanaa waxyaabahan maaragtay introga loo soo geliyo mataqaaniin. laakiin way ila noqotay inaan bulshada Soomaaliyeed wax u sheego oo dhiirigelin aan u sameeyo. subscribe iyo dhaha kow
maalin walbana waxaan soo geli doonaa video yar oo kooban oo aan uga hadli doono arrimaha cilmi nafsiga, maadaama aan ahay khabiir Soomaaliyeed ama oday Soomaaliyeed oo waayey arag ah noloshiisana wax badan soo maray. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaani waa hordhac.